بسم الله الرحمن الرحيم. فيد وناكسن دمانتين با أصحابتا عويسون وناكسن رمضان مبارك سودو هذا محمود عرتم مصطفى عبدي أصحابتا هذه بان دي سلام يا سودو هذا نعاو waxaan doonaynaa barnaamij shir ka hadlo ku saabsan heshiiskii maanta ay wada gaadheen Soomaaliland iyo Khaatimo oo guul taariikhi u soo yeetay dhamaan shucuubta reer Soomaaliland amba reer Khaatimo dhamaan inagoo isku duuban bacdama aynu doonaynaa inaynu qaran Soomaaliland leeyahay aynu samaysano oo lagu midaysan yahay marka asxaabta la soo dhawaado la soo galo waxaan doonayaa caawa in bal aragtida dadka ay aragtidooda ka soo dhiibtaan maanta heshiiskii Hargeysa ka dhacay bal siday u arkaan kulli aragtidii Soomaalida kale amba mujtamac caalamku ay ka qabeen Somaliland iyo Somaliland inay tahay meel cid gaar ah leedahay iyo Somaliland wax la wada leeyahay inay tahay saynu la fakrno asxaabta soo dhawaada khadka feebarkuna insha Allah waan inoo furi doonaa aragtidiinaydu ka soo dhiiban doontaan kulli maanta heshiis taariikhi ah Hargeysa lagu galay oo ay ku galeen maamulada Khaatimo iyo Somaliland kaasoo dhabada loogu sii xaarayo heshiis hordhac buu ahaa dhabada loogu sii xaarayo in heshiis kama dambaysa insha Allah oo Somaliland lagu midaynayo la yeesho matalan labada gudi hogaamiyaashoodii sida wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland iyo gudoomiyaha baarlamaanka Khaatimo labaduba waxay sheegeen inay diyaar u yihiin Somaliland oo mid ah wax kasto lagu helayaba in la sameeyo marka gudoomiyaha baarlamaanka Khaatimo kale matalan wuxuu sheegay in muqaddas wixii umadi ku heshiisa uu muqaddas yahay halka Saad wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland uu sheegay in Somaliland dib ay iskugu noqon doonto dastuurka Somaliland la furi doono waxyaabo badan oo tanaasul la sameyn doono bal marka aragtidiina ayaan caawa halkan ku kala qaadan doonaa maxaa faa'iido inoo leeyahay in Somaliland mid la helo maxaa kala maqnaashu keeni kara maxaa in la isu tanaasulaa ay faa'iido inoo yeelanaysaa bal marka soo dhawaada aad iyo aad baan dhamaantiin idin salaamayaa waana diga soo wici kartaan feebarka qofkii aragtidiisa dhiibanaya dhamaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa komitiyadiina waan akhri doonaa caawa sii share gareeya aragtidiina soo dhiibta feebarka halkaas uu ku qoran yahay waxa weeye in badan bay Soomaalidu tiraahdaa Somaliland ma aha Somaliland wax loo dhayay Somaliland wax la wada leeyay ma aha Somaliland qabiil baale si taa looga gudbo aad iyo aad baynu hambalyeynaa hogaamiyaasha Somaliland inay taa garowsadaan Somaliland wax la wada leeyay amba lagu midaysan yahay inay noqoto waxyaabo badan oo maanta matalan in lagu heshiiyo lagu midoobo oo ilaa heer 27 ka sanadood ama 26 ka sanadood ee diin meeydeen u dabaaldegay macal hadii gorgortan ayada lafteedu gali karto in laga galo oo waxa ku national day la wada leeyahay oo reer Somaliland ay wada leeyihiin in la yeesho hadii macal ay taa ku khasbanaanayso oo in maanta ee diin meeyo intaasoo sanadood ay noo ciyaareenaan bay noo dabaaldegaynay hadii ay noqoto in laga tanaasulo oo maalin national day ay reer Khaatimo iyo reer Somaliland ku midoobaan la sameeyo in la sameeyo marka aad iyo aad baynu soo dhaweynaynaa waxay noqon kartaa wax guud ahaan Soomaaliya oo dhan amba bulshada caalamka oo dhan ay ku khasbanaato Somaliland oo midaysan oo la hela marka aad iyo aad baan idin salaamayaa dhamaantiin ba Ramadan Mubaarak mar labaad iyo mar saddexaad كل قف كستور هي Somaliland أنا برا خاطمي بو كفر حسي تد إسكو إسرة وإسكو ديجا وإلهي ملك وضع بوري بقولال كنا أصلا ضد ملك وضع أمنا لحد كي حرية مر وضع قاطي لصون نقشة اللفتة دين كستور ملها قارد دليل أي كتيرتو قاب كي عين ولصون نقني مثل أنا بقاب كي لوله الشيء كله غير خاطم وكله أي واحد عادوا كتير سنين
oo ay arkayeen dee in cid gaari Somaliland ay u xidhan tahay haddii maanta la yidhaahdo Somaliland waa la ballaarinayaa Somaliland gugushii waa la ballaarinayaa amba wax Somaliland la wada leeyay oo bari iyo galbeedba laga wada muuqday noqonaysa aad iyo aad baynu soo dhaweynaynaa waynu hambalyeeynaa waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa Engineer Faisal Cali Waraabo oo ah ninka haldoorka ugu weyn reer Somaliland ee arrinta ka soo shaqeeyay Somaliland inaan indhaha iska ridinay laakiin Somaliland la wada leeyahay oo lagu wada mideysay in la helo oo in caalamka iyo Soomaaliba kula gorgortami karno ninka horta imilada lahaa ninkaas oo ahaa xukuumadda Somaliland ee Axmed Tiiraayna way la qaadatay aad iyo aad baynu hambalyeeynaa reer Khaatuma laftoodu waxay iyaga laftooda ay garowshiyo badan ka keeneen in dad isku deegaana isku dhaqana ehela ilaahay meel nagu wada abuuray kala tagay oo di ab ka dhow ay iyaga laftooda aaminayno inaan cidina qabiil cid ku raacin laakiin intii ilaahay meel ku wada abuurayba ay wax wada qabsan karto amba wax wada yeelan karto horumar samayn karto marka iyaga laftooda waa ku hambalyeeynaa madaxweyne Cali Khaliif iyo xukuumaddiisa hambalyaanu leenahay inay go'aan geesinimo la qaateen inay Hargeysa yimaadeen inay wada tashi ka galeen inay wixii iyagana u dana Somaliland guud ahaan u dana inay iyaga laftoodu dee garowsadeen oo inaan waxba xamar amba meel ka fog inaan waxba oo laakiin kuwa ilaahay meesha ku wada abuuray inay wax wada leeyihiin wax wada dhistaan inay muhiim tahay iyaga laftoodu way qaateen hambalyaanu leenahay madaxweyne Cali Khaliif iyo xukuumaddiisa ilaahay mahadiya ka gaadho aad iyo aad farxad weyn bay noo tahay amba reer Khaatuma amba reer Somaliland ba inagoo midaysan waxa weeye kaldaloolooyin badan oo iminka leenahay baa meesha ka bixi kara oo matalan dad badan baa waxay ku tiraabaan Somaliland waa qabiil Somaliland wax loo dhay maaha oo beelaha darafiyada oo kale kuma jiraan qoys baa waxan iska xumaamatay oo isu si taa meesha looga saaro ilaahay baan leenahay alxamdulillah tii waxaan ku nin kasto aan imka heshiis rasmi oo wali la kale aan jirin lagu heshiiyay dabayaaqada July oo kalena in shir burca la iskugu yimaado ka bacdina shirka ka bacdina in go'aan midaysan heshiis mida la wada gaadho aad iyo aad u soo dhaweynaa waa hambalyeynaa de kulli qof kasto reer Somaliland ana farxad bay u tahay marka bal soo dhawaada aad iyo aad bal sii share gareeya asxaabta waa sii share gareeya waxay farxadtay waa sii share gareeya khadka Fiberkuna uu idii furay soo dhawaada qof walba aragtidaada sidaad u aragtaa maanta in matalan tanaasulkaasi waxyaabo badan buu keeni karaa wuxuu keeni karaa in matalan astaama imka buu hodliya Hargeysa ku kala yaala diyaaradda Hargeysa saaran oo astaani noo ahayd matalan dhibaatii naga soo gaadhay nidaamkii siyaad bare waxyaabihii ugu waaweynaaye markaynu imka meelaha ka doodayna waxaynu ku doodnaa diyaaraddii Hargeysa ka kacday inay haddana Hargeysa rushayso taa lafteeda dood laga keeni karaa in meesha laga saaro sida ayaguba inaguba aynu matalan bebeega saaran buu hodloo kale uu yahay carqalad in bulshada reer Somaliland ay si walaaltinimo leh caafimaad qabta walaaltinimo ku dheehan tahay ay u wada noolaadaan amba isla jaan qaadaan marka haddii macaltaa lagu waayay oo diyaaradda down loo odhanayo in Somalilandnimadu ka weyntay in wax la wada yeesho ay ka weyn tahay marka kulli waxyaabo badan baa imanaya wali imaka maanta wixii labada dhinacba waan isu dhageystay wali wax saawsi weyno bulshada loo soo dhigay muu jirin aan ka ahayn in labada dhinacba ay sidqeen in la wada hadlo wax la isla eego in ay Somaliland ku noqon karto Somaliland oo mid ah Somaliland oo dhan wada jeeda Somaliland wax la wada leeyahay Somaliland oo isku taariikh inay Somaliland ku noqon karto Soomaalina aynu ku qancin karno ummad isku duuban oo go'aan qaadatay inaynu lahayn marka aad iyo aad baynu hambalyeynaa aad iyo aad baynu soo dhaweynaynaa hambalyaanu leenahay asxaabta dhabaantiin aad baan idin salaamayaa khadka waad soo geli kartaan wixii aragtiya aad ka qabtaan waad ka soo dhiiban kartaan
diyaad baan idin salaamaya mar labaad mar saddexaad Ramadaan mubaarak soo dhawaada maxay kula muuqataa marka weydika aad baan idin salaamaya bal fikirkiina ayaynu wadaagi doonaa iyo waxaad ka aaminsan tihiin soo dhawaada aad baan idin salaamaya dhamaantiinba ayaa laabtii aad baa ku salaamaya the welcome dhalinyaradii aadka Soomaaliland ugu weyn tahay baad ka mid tahay kolley in Soomaaliland oo mid la helaa waa wax aad inagu muhiim marka wax kasto labada dhinacba inay tanaasulaan waa waajib aad bay farxad weyn inoogu tahay dhamaanteenba kolley marka wayna hambalyeynayna labada dhinacba odayaashii ka soo shaqeeyay kuwii bilaabay kuwii maanta ka qayb galay marka dhamaantiin aad baad u salaamantihiin soo kala way sugaynaa Ramadaan mubaarak assalaamu alaykum Abdi Aziz Sayna aad baa ku salaamaya Ramadaan mubaarak marka aad bay caaw farxad weyn bay dhamaanteen inootay reer Somaliland ama reer Khaatumo ha noqoto la marka feebarka abti waa ka ayaa loo meeshuu ku qoray inaad aragtiin kale ma qoraalkiisa meeshuu ku qoray filaya marka wallahi aniga shakhsiyan aad baan farxad gaaray tahay baalka barnaamijyo waxa kuma soo kala jirin adiga jeeraale marka kulli qof kasta oo reer Somaliland farxad bay u tahay waayo waxa imanaysa wixii isku difaaci laaba imanaysa Somaliland marka Abdulqaadir Cadaani saaxiib mawduuc waxa weeyaan heshiiskii maanta Somaliland iyo Khaatumo ay ku wada galeen magaalada Hargeysa inkastoo heshiis rasmi aan ahayn laakiin heshiis hordhac ahaa laakiin haddana waxaan ku faraxsanahay marun la arko mujtamaca Somaliland ku wada nool oo mida amba dhan u wada socda amba wax isla doonaya amba inay meel Somaliland oo midaysana inay meel u jeeyaan doonaya ayaa weeyaan barnaamijku intaasaan kaga hadlaynaa wixii maanta Hargeysa ka dhacay de fikirkaaguna kulley feebarka halkan uu ku qoray oo ka soo dhiiban kartaa suxufi weyn baatay kulley waad nooga khabar badan tahay waad nooga way aragsan tahay marka soo dhaw saaxiib Cadaani asxaabta kalena aad baan idin salaamaya barnaamijku waa ka marka wallahi waa wax aad loogu farxo in labadii dhinac oo muddooyinka qaar dirir xun ay dhex martay dagaal la dhex mareen waxaan ku ridaayadaha social media hoodee ilaa xad la kala fogaaday waxaan ku yiri colaadu heer ay gaadhay in buu hodle beebe la dul dhigo la leeyahay midlan dhibaatana lagu geysto looga fal celinaya diyaaradda Hargeysa saaran mar haddii maanta iyagiyo wada faraxsan ambassador hotel wada fadhiya labada dhinacba ay ka go'antay war Somaliland ilaahay baa inagu abuuray ilaahay baana dhulkan ina dhigay inagoo midaysan oo ku midaysan Somaliland oo dad wax wada doonaya aynu gacmaha isqabsan haday yiraahdeen kale qof kasto damiirlii uu soo dhaweynaya amba wadankiisa de wanaagiisa jecel iyana wuxuu kordhaan alku hiigsanayay inuu gaadho marka aad baan u hambalyeynaa waa soo dhaweynaynaa marka de fikirkiina waa caadi wad soo gali kartaan de wixii aragtiyaad ka qabtaan wad soo deynaysaan bal waxa lagu heshiin karo bal waxa Somaliland oo kale ka tanaasuli karto qaabka isleedahay labada dhinacba way u cuntami karaan qaabka sawirka imika Somaliland uu yahay waxaan ku yiri de midlan cid baa farta lagu fiiqaa cidaasi bal tanaasulkay sameyn karto iyagoo qarannimo u doonayay inay de ubadkiisu qaran u dhaxlo amba dhaxal awow ay uga tagaan inay noqoto dhaqanka Somaliland ka jira wada ogtihiin beelayna wax ku qaybsanaa beelayna nahay beesha dhaxaynu inta badan kulley de farta lagu fiiqaa aynu macal ka soo jeednaa bal tanaasulkay sameyn karto السلام عليكم يا صحفي
عبد الرحمن عبد الحكيم السلام عليكم. عليكم السلام walaalkay aad iyo aad baa ku salaamaya walaal waa ku salaamaya may maqlaysaa السلام عليكم يا صحفي اهلا وسهلا walaalkay aad iyo aad baa ku salaamaya soo dhawow caawa dee farxad weyn bay noo tahay hadaynu dhammaan reer Somaliland iyo reer Khaatumo inagoo isku Somaliland ku maqlayaa de mawduuca waa la socday runtii maanta dee hawshii dhacdayna waan wada daawanayno meediyahan kala soconay runtii arrintaasi dee runtii waxa lagu tilmaamayay arrin guula oo runtii muddo la sugayay oo loo hanqal taagayay oo muddo laga soo shaqaynayay oo marxalado kala duwan soo martay صح runtii waxa laga karaa waa guud ee u soo hoyatay guud ahaan reer Somaliland صح iyo guud ahaan shacbiga Khaatumoba صح inay maaragtay dee waxyaabihii khilaafaadkii iyo xurguftii dee la dhameeyo oo dadka maaragtay laga shaqeeyo walaaltinimadooda iyo wada noolaanshahooda صح oo dee wix wada lahaanshaha iyo Somaliland sidii loo wada yeelan lahaa laga wada shaqeeyo صح runtii dee waa arrin muhiim ah oran karaa in maaragtay Somaliland oo mid la helo صح marka runtii waxyaabaha ugu waaweyn ee dee ka soo baxay meesha waxay ahayd ama ay maaragtay qolada Khaatumo ka hadlayeen dee Somaliland la wada leeyahay la helo صح taasina runtii dee waa mid loo baahan yahay صح oo maxaa la yiraahdaa dee in maaragtay Somaliland laga wada buuqdo صح oo inay Somaliland cid qori wada qaadan صح imika sawirka imika muuqda Somaliland qaybo badan baa maqan صح oo waxay tirsanayaan in maaragtay aanay Somaliland si uga muuqanin ama aanay Somaliland ahayn Somaliland tii 93 la soo wada dhistay صح ama Somaliland tii 91 la soo wada dhisay aanay ahayn صح oo sawirkiisa ama qaybsigu isbedelay baad moodaa صح marka arrinta in dib loo habeeyo oo wax badan dee la xiriyo oo wax badan maaragtay dee dib loo saxo ayay u baahantahay si maaragtay dee dadka haddii lahaydna wax u cuntamo dee ay meesha uga soo baxaan صح marka arrinta ugu muhiimsan ee imika dee meesha soo baxday waxa weeye horta arrinta nabadda iyo isu socodka labada bulsho oo muddo dee hakad ku jiray oo magaranaysaa gobolada qaarkood dee colaado ka jireen oo maxaa la yidhaahdaa ay gobolada kale ee Somaliland ka dib dhaceen oo maaragtay wax badan oo la taaban karo oo xagga maaragtay horumarka aanay jirin imika gobolada qaarkood صح taasina ay ugu wacnay dee colaadihii iyo waxyaabihii jiray صح marka runtii imika in arrinta meesha laga saaro dee guul weyn bay noqonaysaa oo maaragtay bulshada reer Somaliland guud ahaan dee usoo hoyatay bay noqonaysaa صح marka arrinta ugu muhiimsan waa in colaadii meesha ka baxdo oo isafgarad maaragtay wada hadal la isla yeesho oo dee wixii meesha ku jiray badbadu ha laga saaro صح taana runtii dee mahadeeda waxa iskale odayaashii ka soo shaqeeyay muddada dheer ee u soo dhabar adeegay dee culeyskuna uu ku kala badan yahay labada dhinac oo maxaa la yiraahdaa dhinaca Khaatumo culeys gaar ah waa saaraa صح dee dhimasha jirtay waxyaabo badan bay tirsanayeen sidii imka aad ka dhawaajisay صح waxay tirsanayeen ciidamadii dee loo adeegsaday waxyaabo badan haddana dee maxaa la yiraahdaa dee wax kastaba waa dee caanab badaati dib la qabay maxaa la yiraahdaa in uu imika dib loo eego wax badan dib loo saxo bay noqonaysaa صح marka runtii waxa weeye in dee kolay runtii nabadda laga wada shaqeeyo oo inta hawshaasi socoto wixii xanafa wixii maaragtay xagal daca ku keenaya wixii ku keenaya tushuush ku keenayo ay ugu badan tahay maxaa la yiraahdaa hadallada media social media طبعا ama social media noqoto ama noqoto maxaa la yiraahdaa media caadiga ah noqoto ama dadka kale ee hadii jeeral media isticmaala social media isticmaala noqoto waxa weeye in dadku xilisa saaraan oo arrinta dee bal maaragtay la dhowro oo laga warsugo ay ku biyo shubanayso oo maaragtay wanaageeda laga shaqeeyo bay ku qurux badantay صح marka runtii arrinta in dee la barbar istaago oo la gacan qabto oo la taageero oo la soo dhaweeyo ay ku fiicantay صح marka waxa weeye dadku inay mid fahmaan dee Somaliland la wada leeyahay waxa moodaa kabriyaha kan inay dee Somaliland cid gaar ah sheegato xitaa Soomaali qoliyii kale maxaa la oran jiray marka dee reer Khaatumo kale Somaliland waxay dee cid bay ku soo riixaan haddana magaranaysaa dad baa gaar imka qolyahan kulmiyo kale waxa moodaa inay dadka ka sii sheegtaan iyagu صح ama taageerayshooda aan noqdaan ama ha noqdaan mas'uuliyiintooda oo wadarkiisa dee dacaayadaha lagu hayay maxaa la yiraahdaa gudoomiyaha wadani isaga oo baytullaahigi xaramka caawa itikaafay lahaa dee Hargeysa joogayo shir buu ka soo laabtay moqti marka dadkuna inta badan dee waxay hubaan ha sheegaan oo markay media ay marayaan waxyaabo ay hubaan oo dee waxba aan kaga soo noqonahayn maaragtay
marka dadkiina waxay niminkaad moodaaniyow inay miidiyihii si aan caadi ahayn oo maaragtay xilkasnimo darro ah ay u adeegsanayaan oo ay abuse gareeyeen marka inaka lafteenu haddaan reer somaliland nahay wax badan baa inaga qaldan oo waxa qaabka loo wada hadlo hadday noqoto fariimaha miidiyaha la isu mariyo hadday noqoto sidaan waxba la isugu hambeynayn marka waxaad moodaaba dee in iminka maaragtay kala dambayntii iyo waxyaabo badan baa hoos u dhacaya moogta oo xitaa dee nin maaragtay maxaa la idhaahdaaye aan ciidamo diran oo iska hadlayo dad iska maageed arkaysaa moogta ama dowlad dhaliilaya ama xisbi dhaliilaya ama nin siyaasi oo hadlay maagaya waxyaabaha in meesha laga saaro oo dee wax badan dib loo eego bay somaliland lafteedu u baahantay moogta waa si wanaagsan cabdixakiin oo inkastoo aan ka yara cudur daaranayo asxaab kalena ay khadka inoogu jirto aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa aragtidaada fiican ee nala wadaagtay aad iyo aad baad walaal u mahadsan tahay waa kula dareemaynaa waxa aad sheegtay oo dhan bal markaa aad iyo aad baa kuu salaamaya bal asxaabta kalena haye walaalkay qaali aad iyo aad baad mahadsantay bismillah halkiiba hadalkii inooga sii socon doonaa xasano walaal wuxuu ku qorayay qoraalka sare liveka ayuu ku yaalaa lamarkaad soo wacaysaa waxa weeye maanta oo kale markii arrinta laga hadlayay qolada khaatumo cudurdaar bay dhiibteen cudurdaarkay dhiibteen wuxuu ahaa niyo yaan la degdegin oo lagu degdegin arrin imaka arrinteeni waxa weeye waa tallaabo hore loo qaaday amba waa wada hadal bilowgii oo kala la odhan karaa marka qolyihiinan saxaafadii reer somaliland oo hadallada waxoogaa yara kicinta samayn kara matalan dee dadkii aanu matalaynay reer khaatumo dee aanu khaatumay sideed kaga nimi inaad waxoogaa yaro dalaadal muujisaan ood cagta u yaro dhigtaan oo weli inagoo isku reer somaliland haddana weli waa in lagu ixtiraamaa lagu xushmeeyaa khaatume statekooda waayo weli heshiis meeshii muu dhicin heshiis lagu duugay qalinka oo reer khaatumo ay ku dhawaaqeen inay somaliland yihiin oo ay saami qaybsigoodiina qaateen weli kaasi ma jiro marka taa lafteeda dee warbaahin ahaan in warbaahintu ay cagta dhigto weliba kuwa somaliland oo kale ay waxoogaa dalaadalaa si odayaashaasi midhaha ay noo soo goynayaan inta aanay soo go-in inaan laga hor dhicin lagu dadaalo in labada dhinacba laga ilaaliyo wixii nashuushada amba tashuush keeni kara amba natiijada meesha kasoo bixi lahayd ee kala kac ku keeni kara marka aad iyo aad buu suxufi cadaani u mahadsanyay waayo qodob muhiima ayuu ka hadlay oo ah arrintii weli bisayl may noqon laakiin waa arrin labada dhinacba kasoo gooday in la wada hadlo sidii ilaahay meeshan ilaahay baa inagu wada beeray reer khaatumna ilaahay baa ku beeray reer somaliland na ilaahay baa ku beeray dad is-aabaynu hayn khaatumo waxay ku timi dee qawad amba diidma ay dadkaasi diideen sidaynu inaba nidaamkii maxamed siyaad u diidnay nidaamkii maxamed siyaad inaba qawadun baynu ku diidnay iyo quursi iyagoo iyaguna taasoo kale arkaya ayaa keenay in ay khaatumo amba SSC ku dhawaaqaan daydiba shalay halkan baa dee gasheenood lahaydeen waddankaygiibaa nalagu cidhiidhiya amba nalagu dul maamulaya anna sidoo dhabaheedii unbaana nana marnaybay ayay taagnaayeen moogtay marka in laysla saayiro xoogaa laysla eego wax labadii dhinacba si aanay wax turxaani u iman inaan la odhan somaliland khaatumo khalaas way soo hoyatay laakiin cagta loo dhigo laga dhursigo arrintaasi ilaa halkay ku dambeynayso laakiin waxa aynu wada dareensanay aynu ka wada dheragsanay in reer khaatumo na ay ka go-an tahay oo ciday wax wada leeyihiin amba ay wax wadaagaan amba dhaqan dhaqaale dhiig deegaan intuba inay yihiin dadka kale reer somaliland inana waxaynu wadaagnaa dal iyo dad ahaan iyo dhul ahaan iyo dad ahaan intaba inaynu dad aynu wadaagna ay tahay somaliland aynu sheegaynana inay waaxdooda yihiin inana waaxdeena marka bacdamaba ay sidaa tahay inaan arrintii laga sii hordhicin laakiin loo arko un wax farxada oo waran nagu taagnaa oo waxaan ku yidhi dee gorgorkanta soomaalida iminka kale iminka social mediaha oo kale dee marka dhalinyaradu matalan amba
dee sideedaba caam ahaan dadka caadifadu marka meelaha laga wada hadlayo adiyo jaraale dee waa layna duqeeyaa especially innaga qoladeena dhexe aad baa loo duqeeyaa inagoo laynagu duqeynayo somalilandu inay tahay wax yaroo aynu inagu aynu oodanay amba meel aynu ku xidhanay oo inaga inoo xidhan markaas si aynu midhkaasi meesha uga baxo oo wiilka wirwir jooga iyo wiilka looyacada jooga iyo ka hargeysa jooga ay unity iyagoo aan qofna la khasbayn qofna caburis aanu ku raacin farxad iyo niyad iyo wanaag oo qof waliba ay kaga go-an tahay somalilandarnimadu intaa la helo inta taa aynu gaadhayna laakiin waxay noqonaysaa sheekadu inaynu cagta u dhigno dalaadal badan la sameeyo saxaafadeenna ay waxoogaa kelmadda ilaa midhaheeda la goosanayana ay khaatumo iyo reer somaliland sidaa ay labada dhamba ku kala raaliyiin ay ku wada hadlayaan inaynu inaguna u wadno xasanow saaxiib waxaan ku yidhi feebarka ma shaqaynayo wuu shaqaynayaa saaxiibkay waad soo qaban kartaa waa caadi wii hor yaallaa wuu shaqaynayaa xasanow walaalkay ibrahim ciise aad baa kuu salaamayaa rabadaan mubaarak walaalo wallaahi axmedow khaatumo waa dad aynu wax wada leenay waa dad aynu somaliland naga dhaxayso waa baalihii somaliland ay ku duulaysay iyagiyo reer awdal iyo reer salal amba reer saylacba ayaynu odhan karnaa haddaan somaliland isku duuban aan la helinna caalamkana waxba kama iibin karno soomaalida kalena kuma qancin karno inaynu nahay dee british somalilandtii 1960gii idinla midowday baan annagoo haddana maanta ah doonaynaa inaanu dal gaaran noqono laakiin labada qayboodba inkastoo ka yara turxan yihiin qolada galbeedku laakiin iyaga laftooda ay waxoogaa guux u jiro oo kolley mar walba positive-ku lama eega negative-ka laftiisa inaad eegtaa meeshuu ku jiraa laakiin haddana imanka udub dhaxaadka arrinta ugu culisay waxa weeye dadka reer khaatumo markaa bilow wanaagsan baynu leenahay ambalyaynu leenahay dadkii kasoo shaqeeyey ilaahay xasanaada ka siiyo waa barbilow insha allah idamka ilaahay waxaanu rajaynaynaa inay guul kusoo afjaranto dee kulley qof kastaaba saan ugu faraxsanay caawan buu ugu faraxsayey ambalyaynu leenahay commentiyadiina aada umaana eegin laakiin insha allah waan eegi doonaa dee khadkana waa idiin furan yahay feebarka halkaa ku qoran aragtidiina waa aada soo dhiiban kartaan marka aada iyo aad baan idiin salaamayaa waa war farxad leh oo wax aada loogu deersado hallo asalaamu calaykum السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسن والالكي آدي آد باكو سلامي حسن محمد يوروب سو دwow آدي آد ayaan ugu dhawey in badan oo saxaafadu waxaan ku leeyahay doonayay qowada hadalna siyaasadda habeenkan caawa ma sha Allah Faatuma iyo Somaliland isku imaajinkooda marka hore way u ducaynaa waxaan leenahay waa dad meel ka wada nool ilaahay bogooda burcad ay soo mariyo amiin amiin in badan insha Allah way marka waa dad wada dhashay waa inaan iyo aftigi dad meel ku kala tiriya ma indhow noloshiyan imika gaarkay khadka waxa ka muuqanaysay waxa qeybna ka hadlaysay way dawladdiisa barasadu wax la yiraahdo ama qoorsi wax la yiraahdo inuu ka aragnay sababtaas keentay in aynu waxaan ku dawladdaas ku caaridno iyo duusi badan oo iyo danaheeni cashuurta oo waxaan ku meel kala ku dhacaya marka maanta alxamdulillah horta khudbadii ugu horeysay qaaliga ahayd maanta waxa uu ka jeediyay ninkaas odayga cali khaliif iyo waqtigii la socdayba khudbad qaali ah ay ka jeediyeen waan soo dhigay laba goor ayaan soo dhigay waxaana soo dhigay page kala yiraahdo dabka hadal laba khudbadood wan ayay kala yihiin mid tan u dhun daloosha waa mid muhiim ah inay dadku wax ku qaataan waxaana ka qaatay aad iyo aad labada xusbi qaran ee mucaaradka ah
kadibna dawladdu way ku raacday faysal kow ha ka ahaado صح run ahaantii waa wax la soo dhaweeyo loo sara kaco oo waxaan ku wari halka aynu ka dhisanayno guryaha dambe degaankooda laga dhiso waayo dadkaas maanta waxa hadalkiisa ka muuqday ninka la yiraahdo Cali Khaliid waa wax qiira ah waxa qabateen buu yiri hay-adihii iyo waxaan ku wari wixii wax dhisayay waxa ku koobteen halkan laakiinse maalin kaliya ma dhisanta buu ku leeyahay dunyadu halkeysina maalin kaliya ma dhismayso waqti dheer ayuu ka soo sheegay boqol sanadood kama badna maanta milyan 2 milyan oo dhow ama milyan iyo 500 oo qof ayaa maanta صح bogolo waxaan ku rumaantii fikirka furta badan uu soo jeediyay maxay yiraahdaa mas'uuliyiintaas khaatimo ka yimid ama uu saddex goor tiraba afar goor waxaan soo dhigay meelaha baraha bulshada ee warbaahinta waayo oo kordhay wax muuqaal iyo waxaan ku wari iyo waxaan ku wari maanta waa sidoo Faysal u sheegay horta daad markaynu kaftanka u noqono laakiin waxaanu fariin halkan uga dirayaa dhammaan bulshooyinka Somaliland galbeed ilaa iyo wadada dhexe ee la yaqaan caanka ama waxaan ku wari in ay soo dhaweeyaan gacmo furan ku soo ilgu ka muuqdo run ahaantii marna la tusinayo tareen baanu idin saaraynaa hartiya oo waxaan ku wari cirka laga soo diidayo ama Muqdisho laga soo diidayo marna waxaan ku wari laga soo rogayo waxay ogaadeen xaqiiqadii maanta ama waxaan ku wari waxay wax ku oolahaa aanay marnaba ka dhaqaaqeen dadkaasi inay dadkan la dhasheen oo ay waxaan ku doodi yahay ayay ogaadeen taas ayay ugu qorteen maanta waxa ka hadaladoodii ka mid ahaa waxaan ku qoranay dastuurka iyaga khaatimo in heshiis aanu tixgelino heshiiska mar walba Somaliland aan la gelino iyo inta kale nala jaaraba iyagoo farta ku soo tigaya Somaliland runaantii aad baan صح ku jirto kuna soo noqon doona imika yarka badi waayo telefoonkii aan ka soo kaga jiray ayaa waxaan ku leeyahay barnaamijyo kale iyaguna dhinaca ka socdaan aad iyo aad ayaa faahfaahsan tahay qadar waa sidaas hayo walaalkay xasan aad iyo aad baad u mahadsantahay bal khadka kale ku xiga daawadayaasha kulay codadka waad maqlaysaan baan filayaa hello assalamu alaykum hello dhammaantiin aad iyo aad baan idiin salaamayaa mar labaad mar saddexaad kolley codkii qofka waad maqlayseen ayaan filayaa xasan ayuu ahaa calaykum asalaam ها سفي عن ka salaamayaa inkastoo barnaamijkan daawanayso iyo inkastoo daawan doonta iyo daadiyaha barnaamijka shaqada ma sha Allah walaalkay aad baan ku soo dhaweynaynaa adigoo raaliya bal magacaaga waxaa la yiraahdaa Farxaan waxaan kala soo hadlayaa wadaweynaha Jarmalka dhexdiisa ma sha Allah Farxaan oo soo dhawo walaalo barnaamijka kullee wad la socotaan filaya waxaynu kaga hadlaynay heshiiska maanta taariikhiga ee Khaatumo iyo Somaliland bal aragtidaada bal sidaad u aragto bal guda galo kullee daawadayaashu way ku dhageysanayaan horta maanta waxa meesha ka dhacay waxaan oran karnaa waa go'aan taariikhiya oo hankii himiladii Somaliland lahayd iyo ummadda Ilaahay oo hadda ku wada abuuray hore waa ugu socday iyo isku xidhkoodii maanta guul bay u tahay deegaanada way si fiican ingiriisku guumaysan jiro dhan way waana ku amaanayaa inkastoo barnaamijka qaybka ahayd uguna horeeyo gudoomiyaha Facebook oo
waqti iyo maal iyo karti badan begeliyay isna waxaan iyagana kooxda khaatimo oo bisir siyaasiya muujisay kana talisay aayaha mustaqbalka deegaanada Sool iyo Sanaag iyo Cayn iyagana aad baan u amaanayaa marka maanta waxaan leeyahay kulley Somaliland marka hore way yara laangare hayda maanta labadii lugood way toosan oo waxa weeyaan maanta intii ka dhineed maanta baan u oran karaa inay kamarad la iska wada daawado طبعا oo bulshadu dhammaan iska wada aragto taariikhda markii koowaad taasaynu rajaynayno in waxaynu aragnoon hadal iyo waraaqa iyo go'aano laga yidhi waxaan rajaynayaa aan ku boorinayaa in cadaalad baa dadka deeqaha cadaalad waa si ay u shaqeeyaan صح haddaad beesha dhaxal tahay iyo haddaad beesha darafyada tahay dadkan cadaalad ubaa isku haysa طبعا cadaaladda markaa iminka Somaliland beesha dhaxalada kaga cadaalad darro iyo shadburs iyo dhex ka dhex jirta waay marka waxaan leeyahay bahasha maamulka hala fadiyo Somaliland hala wada yeesho hala iska dhex arko bari ilaa galbeed taasi Somaliland ku hana qaadi kartaa kuna tii kartaa sida nimanka wax ku socotina qalad baa inuu kuma rajaynayna in rajada baxaysa maanta la dalaawin la taabigeliyo saxna ugu amaantay barnaamijkan maanta noo tigta khadarow adigii bulshada kale saaxiibada ayna daawanayo aad baan idinku amaanaya waxaan rajaynayaa tobanka khayrkeygii maanta bil khayr badan baa la heshiiyey heshiiskaas u noqdo heshiis hana qaado taaba qaada oo dhammaan bulshaduna ay mahadiso amiin amiin walaalkay aad iyo aad baan farxaan oo kuu salaamayaa waad ku mahadsantahay fikirkaaga nala wadaagtay aad iyo aad baad walaal mahadsantahay aad iyo aad oo ku salaamay haye walaal bismillaahir rahmaanir rahiim kullay waad dhageysanayseen baan u malaynayaa qofka aragtidiisa dhiibanayay qof kastoo amba reer khaatuma ha noqdo amba reer Somaliland ha noqdo kullay wax tallaabo wanaagsan uu qof waliba u arkaa waa guul waxa weeye dhibaatooyin badan baa dhacay maanta haddana wajiyadooda markay maanta ambassador Udeel ay wada fadhiyeen ragga qaar matalan wafdigii khaatuma ku jiray waxay sheegeen inay markii ugu horeysay Hargeysa yimaadaan qaarkood waxay sheegeen shucuurtay dadweynaha reer Hargeysa kala kulmeen in waxyaabo badan oo markii hore qalbiyadooda ku jiray ay bedeshay oo calashaan farxadda iyo wanaaga ay dadka kala kulmeen marka horta ilaahay mahadiya ka gaadho aad iyo aad baynu hambalyeynayna labada dhinacba hawshan maanta inkastoo aanay barbilow iyo bardhamaatoona ahayn laakiin ay bartankii hawsha tahay laakiin haddana raggii halkaas soo gaadhsiiyey ilaahay mahadiya ka siiyo ilaahay xasanaadka ha ugu daro aad iyo aad baynu hambalyeynaynaa bulshada ilaahay meesha ku wada uumay waxaan ku yidhi kaawow dad isdhalay oo isku isira oo isku deegaana oo isku abtiya ah taariikh ahaan ilaahay dee juqraafi ahaan halkaa yar wada dejiyey basharku dee carab iyo labadiisa daanba isqanina kolley qardoofooyin lama waayo biniaadamku intaa way isku dhacayaan dad meel ku wada nool amba ilaahay deegaan ku wada abuuray Soomaaliya oo dhan dee waxa baabiyey waxa weeye dee dhibaatun baa ka dhacday amba si qabiil ha u dagaalameen amba si kala nidaam maamul ha ku dagaalamaan marka xaalka maanta reer khaatuma amba reer Somaliland hawshooda halkay maraysaa waa meel fiican ilaahayna waxaynu uga rajaynaynaa in ilaahay guul ku soo dhameeyo oo July dabayaaqadeeda shirka burcay u balaansaynayn ilaahay guul ka keeno ka ugu dambeeyay natiijada go'aanka lagu kala qaadanayana inuu mid guul inoo horseedan noqdo ayaynu ilaahay ka rajaynaynaa aad iyo aad baynu soo dhaweynaynaa qof kasta aad iyo aad buu ku faraxsan yahay kulley maanta anigu in yaro kooban baan labada dhinac khudbadahoodii ka dhageystay labada qoloba waxa ka muuqatay inay tanaasul weyn sameynayaan ay diyaar u yihiin in maanta la wada noolaado wax la wada qabsado gaar ahaan reer khaatumo dee waxaan ku yidhi muddooyinkii u dambeeyo dhan waxay ahayn dad jabhadnimo kusoo jira iyagoo amba sax ahaatee amba qalad ahaatee siday markaa iyagu arkayeen xuquuq ay leeyihiin inay ka maqantay dad u halgamaya kolley gobolada kale ee Somaliland iyo deegaanada SSC amba khaatumo dee farqi weyn baa u dhaxeeya xaggii nolosha amba xaq dhaqaalaha noqoto amba xaq dhismo ha noqoto waayo nabadda 8 iyo 9 iyo kolley dee intiini markaa dee soo gaadhay amba dee garasho lahayd mutakarka ahayd markaasi dee way garanaysaa dhibku wuxuu yahay amba meel goob lagu dagaalamay dhibtay leeday marka in ilaahay dee nabadda
labada dhinacba ka timi iyo wada hadalka iyo in wax dhan loo wada jahaysto horumarka dalka loo jahaysto gobolada SSC in ay dee barwaaqoobaan baynu ilaahay ka rajaynaynaa dad walaalaheena oo dad ilaahay meel inagu wada abuuray inaan yaabtigii baynay kaanay abti u ahayn awoobay u yihiin marka aad iyo aad baynu hambaleeynaa hadhow marka labada dhinacaysaa u heshiiyaan ee Somaliland midaysan oo Somaliland dee lagu dhan yahay la helo dee korkortan adag inayna Soomaalida kale la gelayn baan filayaa qarannimadeenu inay tahay geed ka go'an waayo imanka farta ugu weyn ee laynu kusoo fiiqaa waxa weeye inaanay Somaliland dee qaran ahayn amba juqraafi ahaan ummadda halkaa kobcadda yar ilaahay ku beeray inaanay waxaan ku wada socon ee ay tahay wax qoys kaliya leeyahay taasi hadday meesha ka baxdo waxaan qabaa in Somaliland cid hor istaagi karta aanay jirin insha Allah biidhnillaahi kariimna taasi way imanaysaa marka aad iyo aad baan idin salaamayaa committee-diina intiina badan maan eegin dee qofkii aragti amba fikir hayoona weli feebarku waa kuu furan yahay waad soo geli kartaa wax kale dee doodi meesha kama doodayna laakiin qof walba bal siduu maanta wixii hargeysa ka dhacay uu arkayay inuu weedhiisa kasoo dhiibto uun siday ula muuqato marka aad iyo aad baan dhammaantiin idiin salaamayaa waa diyaar qofkii wax isla hayo aragtidaadu waa kuu furan tahay soo dhiibo farxadda nala qaybso cawaysin wanaagsan nala qaado dawaydika ibraahim cali aad iyo aad baa ku salaamay saaxiib odayaashii aan caawo kale iyo in badan arrimahan aanu ka wada hadalay baad ahayd caawo kale iyo inaad dee tanoo kale aad ka qayb qaadataabay ahayd oo kusoo dhaweynaya khadkuna waa kuu furan yahay codkaaga inaan maqlo dadweynuhu ku maqlaana waa axsanto waa wax wanaagsan waayo in badan baynu aniga iyo adig iyo dad badan aynu saxaabnay oo kala deegaana ah aynu arrintan oo kale ka wada hadalay way wanaagsan tahay wixii wanaagsan in aad soo dhaweyso wixii wanaagsan in aad u istaagto marka saaxiib soo dhawow weedhaadu caawo waa muqadas soo hadal soo dhiibo dee marka soo hadal oo kumee oda cabdi walba waa dad isku le maxaa yeelay waa dad wada dhashay dhulbahanti waa dad iminka balay ba wax kama aha Somaliland maaha maamul goboleed la soo wariya walaashay hoday waa ku salaamaynaa meesha cayaaf lagada walaashay ma taalo hadaad kulley labadan deegaan amba dadkan aanu ka hadlaynay aad qayb kamid tahay kulley ruux dumaratay in hadalkaaga ka daba qaadana ma haboona kulley waxaan wanaagahayna kuma hadalayn qabiil ina meesha maanaan magacaabin maamulaan ka hadlaynay ambalyaanu leenay dadka ilaahay meesha ku wada abuuray in ilaahay diisa afkaransiyo wax ay wax wada dhistaan ay wax wada noqdaan baan ka hadlaynay marka walaal komadkaaga bil rabadaana wad ku jirtaaye ha iska khasaarin adigoo astaghfirullah subhanallah ilaaba kaaga boontada ay soo qorilay wara asxaabta dhamaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa caways wanaagsan baan idin leeyahay yaa wax isla hayay yaa fikir dhiiban kara dee balwaydika fuaad xasan geele waa ku salaamay walaalkayna sidoo kale waa ka qaaday اللهم صل على محمد نجح walaalkay aad baa ku salaamay xamda aad baa ku salaamay saacad abti aadna sidoo kale soo dhawow aad baa ku salaamaya walaalkay ibnu askar waa ku salaamay dhamaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa اللهم صل على محمد احمد كاس walaalkay aadna aad iyo aad sidoo kale waa ku salaamay اللهم صل على محمد سلطان ayaale abti aad baan ku salaamay ayla barwaaqo sidoo kale dhamaantiinba markaa kulli committee-diina gadaalan ka eegi doonaa xagga hadhow baan fiirsan doonaa aad iyo aad baan idin salaamayaa kulli waa inoo farxad dhamaantiin waa inoo farxad laakiin dee sidaa ay maanta qolada shiraysay amba heshiiska ku wada jirta ay sheegeen innaga waxa muhiimadeena ay toon inaynu dhahno hambalyo iyo inayna ka hor dhicin isu dayno
adigu ilaa inta natiijada ugu dambaysa go-aanka ugu dambaysa uu imanayo waynu isu dhaafaynaa labada dhinacba tixgelintooda ha loo hayo khaatumo khaatumadeeda somalilandna somalilandnimadeeda si aan turxaan u iman aad iyo aad baynu usoo dhaweyneynaa ambalyo aynu leenahay dee caways wanaagsan baan mar labaad iyo mar saddexaad ba idin leeyahay haddii aad waqti inkastoo aynaan waqti badan haysan haddii aad mid iyo laba dee uu soo geli karo waa diyaar haddii kalena cawaysin wanaagsan iyo farxad wanaagsan aynu wada wadaagnay un baynu ka dhiganaynaa insha allah debel aad iyo aad baad u salaamantihiin oo idinka maxaa السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مختار نور دعالي عاقل سودو ادي ابا كو سلام يا رمضان مبارك. رمضان مبارك رمضان مبارك خضر اسماعيل. ان عاقل والله سعتابان مالينيا برنامج بين ku jirnaa barnaamijku wuxuu daaran yahay heshiiskii maanta walaalaheen Khaatumo State iyo Somaliland ay hotel ambassadorku wada saxiixdeen heshiiskaas oo aan heshiis kama dambaysa ahayn laakiin hordhac ahaa sidaad u aragtaa farxad maxaa kaaga baxay maxaad isleedahay Somaliland waa guul waa lagu gaari karaa bal soo daawarkaaga wallahi horta waxaan ku waa farxad inoo soo yeeto ma garab way walaalaheeno inaga maqnaayo wax badan tabanayo marka horeba cidla aan dhignay laakiin hada heshiiska hordhaceedii la galay in afkaas laga yiraahdo waan la heshiino arin maaha waa kii gudoomiye Cali Khaliif nafti adag oo hadla yiri cid u daba fariisan in cidna marto noqon mayna tan sax marka waana ka sarbeebo yiri dawladdu marka hore reer baahed waana runtiisa طبعا marka hada reerkii Khaatumo heshiis la galay waxa qurux badan inta midooga oo walibana sida xilka waaweyn gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha guurtiga waa in wax lagu maamuusaa مختار aan ka yara dhexgalay laakiin hadda wali la islama gaadhin awood saami qaybsiga laakiin wax badan in laga wada hadlo ay iyagu taagayeen taariikhda macaal history ahaan Somaliland taariikh aynu ku midaysanahay in la wada yeesho oo matalan war macaal waxay doonayaan in ay ka doodayaan national day lagu midaysan yahay oo Khaatumo iyo Somaliland ay ku midaysan yihiin in la wada yeesho amba eedin ma ha noqdaan bil xilaa ta ka jun amba maalin kale oo lagu heshiiyay de marka kulli kursi iyo laba kursi iyo arintu wali inkastoo ayna ka hor dhacayno aanay de qodobada wali aanay wax furfurayno keenin laakiin waxay sheegeen wuu soo baxay insha Allah bisha 7keedana waa ka burca ka dhacay ma gara laakiin hordhici bay maanta qodobadan ay maanta shanta qodob horta waa la anfinayaa way fiicantay laakiin waxyaabo ka waaweyn bay nimankan ay soo wadaan ma gara way xaqna way u leeyihiin dhaqadaro صح meesha waan isku urursanay iyagu waxay taagan yihiin waa dawlad istaaq ma gara صح istaaq laftigiisa waxaan ku oray reer dulmayn ma gara طبعا oo waxay tabanayaan wax ka weyn ka maqan yihiin صح marka heshiis horta waan soo dhaweynaa maanta la gaareen xukuumadda صح waxyaabaha ay soo wadaan ay horta dastuurka ka mid ah dastuurka in la beddelaa way taagan yihiin ma gara صح wixii la isku afkarta ma xuma صح marka waxaan ku oray saami qaybsigooda iyo waxay nimankaas xaq u leeyihiin meel loo dhigaa waa xaq baa loo leeyahay صح marka mar walba inagu kuwan soo dhaweynaa ma aad waa soo dhaweynaynaa waa hambalyeynaa waliba in magacay maanta sitaan wali bacdama aan Mukhtaaro wali heshiis kama dambaysa aan la gaadhin waa u tixgelinaynaa waxay rumaysiin amba ay aaminsanaa inay yihiin Khaatumo State iyo Somaliland wada hadlaya Khaatumo State iyo Somaliland wada hadlaya waliba awooyaasheen waxaan oranaa
أنا كنا نلعب عن كل عبشة أنا قدره كل تاسي إنك يجا إنكار بي نوتها يو وحسوا هاشها يو كل حديدة دينه هوسيا مكرانيسا لكن doodooda iyo in wax la isla lafaqro meel ay Soomaaliland u wada jahaysato inagu waa soo dhaweynana Mukhtaar 100% waa soo dhaweynana si ay صح maanta wadi arkayna man ku soo hadlayeen baan kulila gudoomiyaha gudida heshiis sidoo hadlay wadi arkayo ala khalis sidoo hadlay wadi arkay صح ma garat mar walba inagu sacabka waan soo dhaweynayna ما شاء الله ما حنبلي اساسين ودلين dhamaanteen qof waliba way ka go'antay Mukhtaar aad iyo aad ba ku salaamaya kulli aad iyo aad aan ka qaado qadar Ismaaciil ayo walaalkay qaali adna sidoo kale salaam ku salaynaya Ramadan Kareem asxaabay dhamaantiin aad iyo aad baad salaamantiin qof kasto amba telefoon soo garaacaan ba halkan wax ka soo qoraya dhamaantiin inaynu ku wada faraxsanahay in ilaahay isu soo jiido aynu ummadaasi ay wax wada yeeshaan amba wax wada qabsadaan wax labada dhanba oo cuntama ay ku heshiiyaan ambaliyaynu leenay oo soo dhaweynayna cidii ka soo shaqaysay baynu u ducaynaynaa kulli taa muhiimada ah ee waxa weeye inaan lagu degdegin in arrinkii waayo dad wali dadka qaar ba حساسيات لو waxyaabaha qaar ka boodi kara moogtay marka ma oran karayno wixii inaga qulubteena ku jira arrinkii imka ku wada masix mayno khaatumo iyo Soomaaliland dawladda Soomaaliland iyo maamulka khaatumo inay wada hadlaan meel wax isla dhigaan natiijada ugu dambaysa ayeen wax ku goosan doonaa inta ka horeysana ambaliyaan leenay halka ka sii wadayn leenay ilaahay ay la qarab karo oo ducaynayna dhamaanteena Ramadan Mubarak awaysan wanaagsan aad iyo aad baan idin salaamaya asxaabta intii ka soo qayb gashay iyo inta aan waqtiguba u saamixin aad iyo aad baad u salaamantihiin Allah idin sharfo soo sharafteen anna sidoo kale sharaf weyn baan idin hayaa aad iyo aad baad u salaamantihiin wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh